السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sheekadeena maanta waxay ka dhacday dalkaasi Masar. Waxaa jiray laba wiil oo saaxiib ah. Saaxiibtinimadoodana laguma tilmaami karo saaxiibtinimo aan inaba caadi ahayn. Waxay ahayd saaxiibtinimo tii ugu fiicnayd. Intaynan sheekada gudagelin, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saarto. Muuqaalkana noo like garayso. Aad baad mahadsan tahay. labadan wiil waxaa la kala oran jiray Mucawad iyo Xamdi. Mucawad waxa uu ahaa wiil ka dhashay dad taajiriin ah. Aabihii waxa uu lahaa beero badan iyo hanti aad u badan, halka uu Xamdi ahaa nin iska normal ah. Yacni xaafadoodu waxay iska ahayd xaafad iska normal ah, laakiin taasi ma aysan saameynin saaxiibtinimadooda aadka u xeesha dheer. Waxay soo wada dhigteen iskuul primary bay kasoo wada bilaabeen, way soo wadeen secondary bay soo gaadheen, way soo wadeen ilaa iyo heer jaamacadeed ay ka gaadheen. Waxaa isku bartay labadan wiil saaxiibtinimadooda dadka magaalada oo idil. Waxay ahayd saaxiibtinimo badanka dadka cadowga ahi ay ka masayraan. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah magaalada dhexdeeda laga maqlay xabado dhacaya. Markii lagu yaacayna waa labadii saaxiib oo mid dhulka yaallo 5 xabadood baa ku yaala, halka kii kalena uu yahay dilaagii oo uu dul taagan yahay. Fajac iyo amakaag badan kadib dadkii ay isku soo ururaan. Isagii waa Mucawade agu wax ka dayay, yacni uu cararay dembigiinu galay uu ogyahay, waa cararay. Cidina ka mid daba cararin, waayo waa la yaaban yahay labadii wiil sidii u saaxiibka ahaa. Maxaa dhici karaya ay isku dili karayaan? Wiilkii dhulka yaalay ee xabaduhu ku dhaceen, markiiba ambalaas baa loogu wacay, dhakhtarka la geeyey, halka wiilkii kale uu baxsaday isagu. Muddo kadib booliskii baaritaan bay sameeyeen, waxaanay ku soo qabteen Mucawad. Haddaba si sheekada loo baadho waa in baaritaan la sameeyaa. Waxa la is-iriyaa ugu dhow oo la wareysan karaya. Waxaanay noqotay gabadhii uu qabay Mucawad oo loo gartay qofka ugu muhiimsan ee ay tahay in la wareysto. Iyadii baa la soo iyadii baa waxa ay tiri, anaa sheekada bilow ilaa dhammaad idinka sheekaynaye dhegeysta. Waxay tiri labadan wiil waxay ahaayeen laba wiilo aad isugu dhow, saaxiibtinimadoodu ay tahay heer aan inaba caadi ahayn. Kadib ninkan Xamdi la yiraahdo waa kan imika la dilay dhakhtarka yeele, waxa uu i damcay aniga oo halka saaxiibkii inuu ixtiraamo ay ahayd oo dumaashadii baan ahaye ay ixtiraamo ay ahayd. Waxa uu sameeyey inuu anigii damco, anigii dabagalo, adigaan ku doonayaa, waxaasan kaa doonayaa, ninkan iska fur. Erayo yacni aan macquul ku ahayn gabadh la qabo ayuu oran jiray. Waxa aan in badan dulqaataba markii dambe ay waqti dheer qaadatay, waxa uu soo gaadhay bay tiri Xamdi inuu igu yiraahdo ninkan iska fur ama waan dilaya, isaga laftarkiisa dilayaaba. Markaas waxaan ku oran jiray sidii wax ka yihiin, sidii wax u wadaa, warwa saaxiibka dumaashida baan ahay, ma jirto waxaas oo idin ala i cad ayuu oran jiray. Markii aan odaygayga u baqay bay tiri ayaa waxaan sameeyey inaan isagii u sheego, aan ku iraado saaxiibka Xamdi waxaasuu doonayaa, damacaasa ku jira wakaas. Markaas ayuu Mucawadna xanaaqay, waa nin gurigiisii loo soo marayo, kulli waa dareemi kartaa. Kadib buu qoriga qaatay, dhacdana saas ku dhacday. Kadib baa booliskii ay arrinkii qaateen oo yiraahdeen ma sidaas ahaa, sax weeye. Haddaba Xamdi in badan buu ku jiray dhakhtarkii biliya dheeraad, halka uu Mucawadna jeelkii ku jiro oo loo haysto dembigii. Xamdi markii uu soo ladnaaday ayaa lagu yiri maxkamadaanu saarnaa ninkii dembiga ku geystay ee diyaar garow. Ninkii Xamdi ahaa waxa uu soo istaagay in aanu wax dembi ah ku haysan saaxiibkii Mucawad uuna fasax ka yahay. Dadkii way yaabeen, ma ninka 5 xabadood kuu dhuftay ayaa leedahay hadeer waan cafinayaa? Isagu wuxuu yidhi go'aankayga weeye, ninka wax dembiyoon ku haysta ma jirto. Sidii baa la yeelay, waa la iska sii daayey Mucawad. Xamdina shandadihiisii uu qaatay, magaaladii waa ka tegey. Waxa uu tegey magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Mucawad iyo xaaskiisii sidii bay magaaladiis kaga noolaadeen, noloshoodii u sii wateen. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa saldhigga booliska waxaa timid gabadh sheegaysa in ay hayso warbixin aad u muhiim ah ay booliskuna u baahan yihiin. Gabadhii baa waxay booliskii ku tiri, warbixintan aan idin hayaa waa warbixin aad u muhiim ah. Haddii markan sidaa idinku sheego aad tallaabo qaadi
weydaanna dembi baa dhici doona, qofna waa la dili doonaa. Haye waayahay bay booliiska yidhaahdeen, noo sheeg tallaabada naga qaadayna. Kadib baa gabadhii waxay sheegtay inay ka shaqayso beerta uu Muscab iska leeyahay, aanay hadda ka soo carartay, sababtuna ay tahay gabadha Muscab baa igu tiri bay tiri, odaygaaga iigu sheeg maadaama dembiilo hore uu yahay inuu odaygayga dilo anna aan lacag siiyo. Kadib waan u qaadan waayey beertii Mucawadna waan iska soo casilay ama shaqadii baan ka tegay oo waan iskaga soo cararay. Haddaba boolisku tallaabo ma qaadi karaan, wax caddaymo ah gabadhan kuma hayaan soo maaha. Waa inay dabagal ku sameeyaan gabadhan iyo tallaabooyinkay qaadayso. Waxaa loo diray qolo boolisa oo dabagasha gabadha Mucawad si loo ogaado dembiga iyo shirqoolka ay wado. Markii in muddo ah la daba socdayba waxaa la ogaaday inay qof si joogto ah ula hadasho. Dabagal kadib waxaa la ogaaday habeenada ka mid ah in ay gabadha Mucawad ay dhakhtarka ka doontay dawo sun ah si ay ugu disho Mucawad. Booliskii waxay islahaayeen markii hore ka gaadh habeenimo, markii marse 8 fiidnimo meelahaas ay booliskii albaabka ku garaaceen, waxaanay ogaadeen in uu Mucawad cabbay cabitaankii ama sharaabkii ay rabtay inay ugu darto already oo suntii jidhkiisa ay ku jirtaba. Waxa ay waceen ambulance si loola cararo Mucawad. dhakhtarkii baa la geeyey, suntiina waa laga gaadhay oo jidhkiisa waa laga maydhay. Haddaba gabadhii baa la waraystay oo lagu yidhi maxaad sidan u samaynaysaa? Waxaanay ku jawaabtay in marka horeba aanay Mucawad u soo raacin jacayl iyo inay gabadh u noqotee ay rabtay lacagtiisa. Horena ay u ogeyd Mucawad iyo Xamdi sheekada ka dhaxaysa iyo saaxiibtinimada aadka u xeesha dheer leh. oo waxaa la weydiiyey waa ayo qofkan aadka ula xidhiidhi jirtay aanad u sheekaysan jirteen. waxaanay sheegtay inuu yahay waardiyaha ama ilaaliyaha guriga. waa qof ay hore xidhiidh uga soo dhexeeyey intaanay isguursan Mucawad ka hor, aanay qorsheynayeen dilkiisa. sida uu guriga kusoo galayna ay tahay in ay u weydiisay Mucawad shaqo uuna uga dhigay ilaaliyaha guriga, waxaanay qorsheynayeen dilka Mucawad. waxaa lagu yidhi haddaba ka sheekee sheekada hore uga sheekaysay ee arrintii dhex martay Mucawad iyo Xamdi ay ku kala go'een. waxaanay sheegtay in ay tahay sheekadaasi sheeko ay iyadu samaysay, oo waxay rabtay in labada wiil ee saaxiibada ahi ay isdilaan, midna jeel ka galo midna dhinto, sidaasna ay ugu soo hadho xoolaha iyo hantida Mucawad. oo sheekadii uu Mucawad ka xanaaqayba oo uu saaxiibkii u dili gaadhay iyadaa samaysay, wax jira ma ahayn. waxay tiri Xamdi baa igu fahmay sheekadan. haddaba Mucawad markuu ogaaday siday wax u jiraan, waxa uu markiiba u tegay saaxiibkii Xamdi oo joogay Qaahira, waanu ka soo cafis dalbaday. Xamdi nin akhyaara buu ahaa oo wuxuu yidhi de kulliba sheekadaas haddii adigoo kugu dhici lahayd nin gurigiisa loo dabamaray ma cafiyeen, wax aan dilahayna ma sameeyeen. haddaba intaasi sheekadu kusoo gabagabowday. aad baan idin salaamaya dhalinyaro. waxaan kaa codsanayaa inaad channelka noo subscribe garayso, muuqaalkanana noo like garayso. mahadsanid. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.